ku-xigeenka xogayaha guud ee xisbiga u cid ahna murashax u taagan doorashada golaha wakiilada ee gobolka Maroodijeex Cabdinaasir Yuusuf Cismaan Qodax ayaa deeq lacageed iyo agab kale gaarsiiyay dugsiyada sare ee Maxamed Mooge iyo Maxamuud Axmed Cali ee magaalada Hargeysa. Murashaxa ayaa ugu horreyn deeq lacageed oo dhan $1,000 ku wareejiyay maamulka iyo gudiyada maamula dugsiga sare ee Maxamed Mooge. Ugu horreyn waxa halkaasi ka hadlay xubno ku hadlay gudiyada dugsigaasi iyo maamulaha dugsigaasi waxaana u mahadnaqeen murashax Cabdinaasir Qodax. hawshan maanta isku dhimay wax weeyaan inaanu ka gudoono Cabdinaasir Qodax inaan ka gudoono $1,000 oo iskuulka ugu ballan qaaday oo kaga qayb qaadanayo laba fasal oo loo dhisayo dugsiga Maxamed Mooge maadaama ay ardayda dugsiga soo kordhayaan ardaydina ay meel galaan ay ku yar tahay ama ay ciriir ku tahay waxa uu gartay laba qol oo maalin dhaweyta wasaaradda noo dhagax dhigtay waxa uu gartay inuu $1,000 oo kaga qayb qaato si uu ugu dhiiriyo dadka kalena iyaguna ay wax ku darsadaan iskuulka maadaama ay tahay howldan guuda xildhibaankana waan ducaynaynaa inuu ilaahay ku guuleeyo. Kulli maanta halkan waxaan isugu nimi inaynu Cabdinaasir ka gudoono contribution oo kaga qayb qaatay dib u dhiska laba fasal oo loo sameeyay dugsiga sare ee Maxamed Mooge oo runtii uu nagu dhiirigelinayo ka arday ahaan iskuulka hore uga baxday oo hawshan hore u soo waday iyagoo ahaa kuwii hawsha bilaabay Qodax oo ah nin u sharaxan golaha baarlamaanka ee golaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ee baarlamaanka runtii han ka weyn xildhibaannimadan leh runtii waxa lagu jira 10kii u dambeeyay Ramadaan insha Allah hamigaaga Ilaahay ku rumeeyaan ku leenahay saad noo dhiirigelisay runtii annaguna waxay noo tahay inaan hore uga sii socono halkan hawsha ka sii wadnay xildhibaanada kale ee Hargeysa ka sharaxan siibahan ka soo jeeday labadan degmay Maxamed Mooge Maxamuud Haybe runtii waxaan ku dhiirigelinaa in iyaguna sida Qodax iyo rag la mid ahaa Cabdikariin Axmed Mooge kamid ahaa in iyaguna ay ka soo qayb qaataan si aan anaguna magaranaysa hawsha u sii libajibaarno. Cabdinaasir Qodax ayaa imika ila fadhiya waxaanu ka gudoomeynaa lacagtii uu nagaga furtay haddaanu waalidka nahay ee uu nayri idinku intii aad bixin laydeen waalidow ana idinkaga daraya ayaanu maanta ka gudoomeynaa haddaanu guddiinahay iskuulka sare ee Maxamed Mooge iyo mas'uuliintii maamulihii iyo ardaydii samaysay baleenkan halkan aynu maanta joognaa waa dugsigii sare Maxamed Mooge magaalada Hargeysa waxaynu isugu nimi in aynu ka gudoono xildhibaan Cabdinaasir Yuusuf Cismaan Qodax lacag $1,000 oo ugu deeqay dugsiga sare Maxamed Mooge. Dugsiga sare Maxamed Mooge wuxuu leeyahay guddi horumarineed oo ka kooban ardaydii hore uga baxday iyo guddiga waalidiinta oo iskaashaday maamul iyo macallimiin marka account bay u sameeyeen dugsiga accountkaasoo kii saada kii Soomaaliga shilin Somaliland ka ahaa iyo kii dollarka ahaaba dhowr kun oo dollar baa ugu jira accountka. Cabdinaasir Yuusuf Cismaan Qodaxna maanta $1,000 buu ku daray waanu u mahadnaqaynaa. Waxaa isna halkaasi ka hadlay murashax Cabdinaasir Yuusuf Cismaan Qodax. runtii wax imika dalkeena ku cusubba oo runtii wax oo debriyahan bal ilaabayba ay keeneen oo fikrad ah in qof kasta oo arday kasta ka baxay iskuulka in iskuulkiisa wax ku soo celiyo inta wax iska ururiyaan ardayda ka baxday iska wax u qabso wixii loo oran jiray soo celiyaan oo ay iskuulka ku soo noqdaan oo ay markaa wixii kolba tari karaan ay taraan runtii waa fikrad fiican ardayda ka qalin jabisay iskuulka ayaana runtii fikradda lahaa marka anaguna runtii waxaanu ka dul qaadnay waalidka hawsha culus haya tii carruurta korinteeda haya haddana in iskuulkii ay ka qayb qaataan inay labada qol ay dhisaan baan ka dul qaadnay marka waxaan ku nidhi wixii contribution aan isku urin doonaa idinku waayadoo maasintii kala carruurta ku soo tacabteen Maxamed Mooge tanoo kaliya baahidan oo kaliya iskool yaraanta iyo galaas yaraanta ma hayso meeshii loo dhaqaaqaa baahi baa ka jirta hadday wada tahay imika halka wada ka baxda odayaasha Ilaahay khayr ha ka siiyay muddo dhowr sano ah ay la tacaalayeen oo runtii aad iyo aad runtii hawl badan ka gaadhay wax badan ay ka qabteen marka amba wada ha haato amba caafimaad ha haato amba iskuul ha haato amba horumarkii kale asaasiga ah intaba ha ahaatee Maxamed Mooge baahiyo badan baa ka jira taana waan isku soo noqon doonaa haddii Alla ilaahay insha Allah labada galaas inta naga dhamaanayaan u kala tagi mayno dhexdana xiran doona insha Allah
intaasi kadib murashaxa ayaa dugsiga sare ee maxamuud axmed cali waxa uu ugu deeqay agab waxbarasho oo ka kooban kuraas iyo miisas waxaana ka guddoomiyey maamulaha dugsigaasi cali balayax maamule cali balayax oo kelmado halkaasi ka yidhi ayaa u mahadnaqay murashax cabdinaasir qodax musharaxa golaha wakiilada oo qaybta maaragtay golaha wakiilada cabdinaasir yuusuf cismaan oo dugsigan ka baxay marka wuxuu noogu deeqay oo maanta halkan oo noogu keenay 20 set oo kuraastaas halkaa ka muuqata ah oo uu runtii xusuus ahaan uu iskuulka ku caawiyey marka anaguna waa soo dhoweynay marka iyadoo iskuulku fasax yahay oo kuraastuna waxoogaa nooga dhindhinaayeen oon doonaynay inaanu maaragtay wixii aanu hellaba dee ku kordhinay dugsiga marka dugsigan oo ahaa dugsi dee bulshaweynta reer Hargeysa ay aad iyo aad u daneeyaan oo dugsiga sare maxamuud cali ardayduna ku badan tahay isna ka mid ahaa ardaydii maaragtay ka baxday maaragtay marka sidaa darteed waanu ka guddoonnay aad iyo aad baanu leenahay waad u mahadsan tahay cid kasta oo dugsiga ka baxdayna waxaanu leenahay qof walba waxaad ku darsan karto dee ku darso waa dugsigeennii waa dugsiga mustaqbalka ay carruurta dhalan doonta haddii alla yidhaahdo ay imanayaan nin walba carruurtiisa wax ka dhigan doonta ugu dambeyn murashax cabdinaasir yuusuf cismaan qodax ayaa halkaasi ka hadlay waxaanu sheegay in tallaabadani aanay noqon doonin tii ugu dambeysay maanta aan joognay waa iskuulkii maxamuud axmed cali oo iskuul taariikh ku leh dalka reer Somaliland ah waxaan halkan runtii aan bogaadin iyo hambali ugu soo jeedinaya maamulaha iskuulka oo runtii anigana macalinkaygii ahaa cali oo runtii kaalin weyn oo mug leh runtii da'yarta iyo aqoonta runtii keesuntan waa runtii waa iskuul ballaaran arday badan baa dhigata arday ilaa 2,000 ku dhow baa dhigata intaasoo sanad walba wuxuu 1,700 baa dhigta sanad walba wuxuu soo saara intaas oo aqoon yahan oo jaamacadaha dalka runtii dee wax ka dhigta oo qaarkood ka aflixeen baa ayuu soo saaraa ilaahay ha barakeeyo macalinkana iyo maamulahaba runtii kaalin weyn buu dee ummadan iyo qarankan iyo dadkan reer Somaliland baa ka jira aniga runtii maanta xusis gaar ah tahay in iskuulkii aan ku soo bartay aan maanta dhex joogo iskuulkan runtii galaaskii aan fariisan jiray iyo halkan fariisan jiray oo runtii ayaan dee runtii maanta xusis dheer ay soo booqday oo kursiga soo fadhiistay dad badan oo wax ku soo bartayna way jiraan oo maanta dunida meel walba ka dhacay qaar badan oo geeriyoodana way jiraan ilaahay intii geeriyootana ha naxariisto macallin badan baa runtii halkan wax ku dhigi jirtay oo ardayda la dadaali jirtay baa runtii caawa maanta naga hooseysa ilaahay ha naxariisto maanta iskuulkan dee markii dalka lagu soo noqday dee waxaan ka mid ahaa ardaydii isaga oo aan ruf lahayn daasadaha ku fadhiisan jirtay jingada arkaysaad iyo sida qurux badan maanta ma jirin markii dalka lagu soo noqday 1991kii maanta intaan runtii maanta halkan aanu keenayna wax kala maaha waxa weeyaan inaanu la qaybsano horumarka iskuul ka socda wixii kolba baahi ka taagan runtii aan wax ka qaban insha Allah teedii koowaad noqon mayso tii ugu dambeysay noqon mayso insha Allah waxaan rajeynayaa inaan sii wadi doono oo maamulka macluumaadka isku xidhnaan doono kolba wixii iskuul ka taagan ee baahi ka jirta isla gacan qaban doona haddii alla insha Allah wasaaradda waan ku amaanayaa iyo muxuu ahaay maamulka muxuu ahaay wasaaradda inay dee runtii juhdi dheeraada ay siiyeen tacliinta halkaan ay ka sii wadaan banigana ku gaabinaya tacliintu cid kasta oo u baahan tahay mucaarad iyo muxaafid cid iyo reer Somaliland cid wax ka shanaysa oo u baahan tahay ilaahay waxaan ka baryaynaa subxaanahu wa ta'aala inuu doorasho wanaagsan inoo dhacdo kowsida ka meeyna nabadgelyo caafimaad ku gaar inuu dhacdo insha Allah dad wanaagsan inoo soo baxaan murashax cabdinaasir yuusuf cismaan qodax ayaa u taagan doorashada golaha wakiilada Somaliland waxaanu intii bisha Ramadaan lagu guda jiray oo 3 garoon ka dhigay 3 koob halka uu 2 dugsi sare uu gaarsiiyay deeqo lacageed iyo kuwa agabeed maxamed midh qursame Ariel TV Hargeysa